maalintii aad imsa ka soo galay maalintii imsa ka soo galay sideed kun oo yar wallahi ilaahay baan kugu dhaarshay haddii aad tahay qof muslina oo iimaankiisu buuxo ilaahay baan kugu dhaariyay ilaa aad sheer garayso oo ribosti u sii taabato ha dhaafin oo aad u sheer garayso 15 qof ugu yar ma hooyada baad la nooshay xagee joogtaa ha ya dami xaafada madaa u shaqeeya magacaan habi inanta yar kale maxay isku tiin labada hablood tani waa saaxiibada magacaa magaciisa sheekay adigana habi waxaan ku siinayaa inta maalintii ka soo gashay ka waran lacagta maalintii ka soo gashay shaqada ayaan maanta ku diray ka waran maalintii sheegay inta ka soo gashay way sideed kun oo shilin waa xaweeye $1 way ka yartahay geerkina meelaa weyn laakiin aad u shaqeeya guri bay ka shaqeysaa habi walaalahayga muslimka ah oo hablaha yaryar aad u jeedaan ee quruxda badan ee ifaya ee caarka ee dhashay ee ugu weyn ay tahay 8 jirka ilmaha rayaal aynu ka farxino oo mustaqbal bay rajeynayaan oo quruxdaas ka muuqatee waa gabadh waa caar waa ilmo yar oo dhalatay nolosha adag ayay wax weey la daara dhacaysa ilmaha rayaal waxaan go'aansaday inuu ka farxino oo samafalkaynu sameyn jiray iyagana oo samafalee aynu ka farxino hadii inuu dameerkaagu nool yahay lambarkaas aan idin yeelinayaa ee qof kastaba waxaad awoodo ugu soo hagaaji 0623260256 dahab iyo talasoon baa uu leeyahay magacana waxa ku soo baxaya Cabdinuur Saleebaan Jaamac billahi calayk hablaha yaryar ee caarka ee quruxdaasi ka muuqato ee duruufaysan aynu ka farxino ilaahay baan idinku dhaariyay waa habla yaryar oo dhashay qof kastaba habla uu dhalay laakiin kuwan yaryar waqtiga ciilay oo halka dhigay walaalayaal aynu ka farxino qofka aan lambarka dhakada ka qabano committee ugu horeeya ayaan lambarka ku soo qoraya xagga ka qoro hadii kalena luuqa igala soo xiriir si aan lambarka kuugu sheego ilaahay baan kugu dhaariyay soo